قريبا وحلقة يبغى سويدين السنة أبوان كي نوع عن برنين أياد بوجينا برسان مركا وسكفها مسان أبوان أحمد فارح علي وغني عن التعريف قف قصة جرانية بوجا عاوي نوع عصب أبوانكو حيابها اللي قد روح حكم ذا إنه رقم كمية كلية ودور سيه رقم كي مجال كي رقم كي حيابها رقم كي بيرليدا وسن جهدي وين جلينين رقم كاسمية شكوين كي آتك عنكو هاين كده يستوي حكم ذا سحر عامر وحكم ذا ها تفرديق أما سموذا أحمد سعيد وحكم ذا متان عيداد وحكم ذا ها قصدي دحمرتي راجو وجاس إيو جرادويلوال إيو كوكلة أو فربضن أو سوغانتي سومالي ذا هاي رقنكي سومالي جا تاريخ دي سومالي ذا قيب بدن أو كم ذا إذن تاريخ ذا رقنك سوغانتا إيو رقن كنا وحبضن بان كفايدني أما كم قلني أبوانك حقي هلجنكي إيو لرجع لجوميستهنا إن بدن أيان كم قلني إذا جاء ذيك واحد كنت قانين قرالك أو الصومالية واحد حسوستا ديكشنري وسميه وإنجليزها سوق ما قانين واحد حسوستي إنك لا تواجس يا الصومالية ها وعكلو سميه ديكشنري كلو يرو أف عربي يو أف إنجليزها راديو مقدش روح يقول هنجري برنامج أو نقدقة أدبك صوماليات wuxuu wax ku qori jiray najmata October qaybteeda Carabiga ah wuxuu ahaa af Soomaaliga intaan la qorin ayuu wuxuu ku qori jiray af Soomaali wuxuu ku qori jiray far af Soomaali Cusbaaniga la yiraahdo wuxuu ku qori jiray tan Laatiiniga ah wuxuu ku qori jiray kadaran la yiraahdo far uu lahaan jiray waa intaan kacaanku uusan qaadan fartaana hadda aan wax ku qaadano marka waa nin wuxuu ahaa ihtimaamaad badan oo sidaas ah uu jeclaa mar kastaba marka waan sar socon jirnay waan ka faa'iideysan jirnay nin marka saa u fara badan waaye intaas aan ku soo koobno abwaanka qoraal ma ahan dhinaca kale aynu ku baranay sheekooyinka waliba ilaahay uu siiyey موهبو دينا هذالك عدكيسا قروحدا بدن marka uu soo jeedin jiray sheeko faneedka sheekooyinkii dhaqanka la xiriiray ee haayeen kuwa aynu xasuusano wadankii intaynu joognay aan aad u dhageysan jiray ahamiyada ay leedahayna qofka ilmaha yar waliba marka uu soo korayo waa in looga sheekeeyaa taariikhdiisii qofkii garanaya jiritaankiisii hore oo garanaya halyeeyadiisii hal doorkiisii dadkiisa qiimaha badna waxa ku dhalanaya inuu hami nolosha ka yeesho waxaan si isweydiiyay aniga Axmed Faarax Ali idaaja magacan idaaja goornuu soo raacay xageesa loogu bixiyay yaasa u dooray waa wax isweydiinaya kamid ah marka asiga haduu noo sharaxi doono maxaa yeelay suurada la yiraahdo idaaja nasrullaahi ayaan quraanka ku ogeyn marka duqaan yaa u dooray idaaja inta kadib waxaan rabaa mararka qaarkood dadku waxa la rabaa dadka hore wax xuriyaa la yiraahdo marka hadda waxaan islaamad wax xurisaa laftirkaaga waxaan rabaa inaan iraahdo idaaja intaadan ibaran buugiisa akhri intaadan baran buuga baro buuga akhri buugaad ka helaysaa anugu markii wasaaradda arrimaha dibadda aan ku soo biiray agaasimayaasha madaxtooyadu ka mid ah marka barnaamijkiisuna kama uu harin raadiyo muqdisho dadka dhalinyarada jiilkaas waqtigaas jiray ilaa hadda uu ku soo noqnoqona waa barnaamijkii dhaqanka iyo fanka iyo suugaanta Axmed Faarax ila idaaja qof walba iska qabtay saasaa habta loo haystota madaxeen uu ka buuxsamay marka wax badan buu u soo shaqeeyay guddiga af Soomaaliga dhaqankii suugaantii wax walba tinoo ah muxuu ahay to qoraa waxyaabo badan oo uu ka hadli doono waa jira dadkuna hadalkiisa wada sugayaan annaga haddaan diblomaasiyiin nahayna inaan dadka dhageysanaan jecelnahay intii maaragtay aan hadli lahayn marka waxaan ku soo dhaweynayaa maaragtay bismillaahi raxmaani raxiim maqlaysaa horta caawa meeshaan waxaan kala tegayaa ammaan jawaano ammaana oo igu filaan doona 2 sano soo socota
ammaantaasi ma wada lihi runtii laakiin dee dadka waa marka la ammaanayo ma wada laha iyaguba dadka kaleba alla xil aad iyo aad baa umahadsantihiin waxaa keliya oo caabi iyo ninkii odaga ahaayoo daadihiyaha ah xoogaa waxaa ku siyaada da-da lama sheego meesha shirka la joogo 1900 iyo waxaasoo dhashay iyo reer magaal baa la noqday oo da-da hadda maaragtay waa la iska yani hoos baa la isugu sheegaa inaan macallin u ahaa iyo waxaan rabay waxyaalo badan baan kusoo talagalay oo aan ka hadlo ujeeddadu sida aad og tihiin ama laydin sheegay waa buugga inaan buugga xayeysiin baan u aqaanaa dahafurka anugu xayeysiintu ceeb maaha iyo haddii alla kuu roon yahay waa in waxaaga aad bandhigayso oo aad sheegtay oo aad qortay markaas aad maaragtay dadka usoo bandhigtaa jeclaysiisaa haddii aan la jeclaana waa dee aday kugu xiran tahay oo dee waxaad meesha aad ku qortay markii hore waxaad soo bandhigtaan macno saasa lahayn waxaan rajaynayaa in la ii dulqaato macallin baan ahaan jirayoo waxaana la baray waagii macalinimadana la barayay ardadu hadday sheekaysato iyagu ma xume adaa faashilaha la odhan jira waa inaad ku soo jiidaa wax ay kugu dhegaystaan attentionkooda aad ku hesho waan isku dayayaa taa laba arrimood baa marka waxaan rabaa inaan wax yar ka hormariyo aadan carab intaana u soo dhicin guud ahaan dhaqanka inaan ka hormariyo oo yani aan soo dhoweeyo dhaqan marka hore marka lagu sameynayo tacriif waxa weeye waa hab ay ummadi ku dhaqanto oo qofkii ka bayra lagu dhaliilo lagu haaraamo qofkii ku kacana lagu ammaano macnaha bulshadii wixii ay doonaysay iyo ama ay dulqaadka u lahayd ayaad markaa ku kacda dhaqanku waa saa wax kale ma hidduhuna waa la mido waa caado isagoo caadooyinka wey soomaalida dhaqankeeda marka waxa ugu horeeya oo la dareemayaa inay toltol ahaan jirtay qabiil qabiil markay ahaan jirtay waa dagaalami jirtay wixii hadba isxigo oo isku ood ah waxaa lagu dagaalamayaana siyaasad ma ahayne waxay ahayd ceelka biyaha ah iyo daaqa xoolaha ayaa u badnaa waxaa lagu dagaalamo waxaa ku xigay ama waxyaalaha dardaran ka mid ahaa gabar la faraxumeeyo oo laysugu bi'i jiro oo laysugu maaragtay gabdhaha hadda layska kufsanayo oo ninkii kufsadayna uu qiranahayo weliba banaanka isagoo taagan soomaalidu waxay lahayd maamul madaxtooyo ayay lahayd oo qabiil kastaa wuxuu lahaa nin madax u ah oo la aqoonsan yahay oo dhaxal ah markaa ninkaa madaxda ah yani lama dooran jirin oo waxaan maqlay ciisaha keliyaha doorta ninkay madaxda ka dhiganayaan laakiin soomaalida inta kale waa aabba hadduu dhinto odagu ninka curadka aha noqonaya boqorka ama malaakha ama imaamka ama ogaaska ama garaadka ama wabarka intaasi waa isku mid wax kala sarreeya maaha ninkaa madaxda ahi ma lahaan jirin ciidan uu wax ku fuliyo wuxuu lahaa waxa la yidhaahdo awood moral ah akhlaaqeed oo maxay tahay waxaa laga baqayaa haddii amarkiisa la diido inuu dadka habaaro habaarkiisana waxaa la odhan jira dhulka ma dhaco marka sidaasaa looga baqi jiro waxaa la odhan jiray ugaaska iyo ninka duubka ah erga duubka aha ka dhexeeya wax oo dhan waa dhow waxaa soo baxay intii burburka isimada waxa la yidhaahdo anu magaca meele ka timid waa magacyada isimada soo magac maaha marka waa af soomaaliga erey ku cusub amaba jirayo dee meel yaraa laga soo saaray laakiin hadda waa hirgale uun isimada waxa la yidhaahdo ciidan ma lahayn baan idhi laakiin go-aamada u gaaraya laftooda isagu iskama gaari jirin keligiis ma ahe odayaal baa soo bisleeya ka soo shaqeeya markaasi waxay oran jireen waxaasaanu ku heshiino isagu markaasuu guddoomin jiray guddoomiye ereyga guddoomiye meeshuu ka yimi wakaa
guddoomiyaha gobolka banaadir isagaa guddoomiyey oo guddoominaya wixii dhaca odayaashaas magacooda guurti baa la yidhaahdaa xeer baa jira marka lagu dhaqmayo oo tolku ku dhaqmayo kulana dhaqmayo tolalka kale qabaa'ilka kale xeerkaasi xaggee ka samaysmaa geed buu ka samaysmaa geedka markii la joogo ayaa arrin baa la keenayaa arrintaasaa lagu heshiinayaa sidaa iyo sidaa aan yeelo sidaa iyo sidaa aan yeelo waa la wada ogolaanayaa xeer buu noqonayaa muxuu noqonayaa beri ka maalin haddii kiiska oo kala dhaco kii baa la xusuusanaya rag baa yani diiwaan ahoo joogo oo yaqaan waxaan idhi awoodda ciidan ma u lahayn ninka yani boqorka ama ugaaska ama garaadka ah soomaalidu marka laba nin baa soo martay inta taariikhda aan la xusuusan yahay oo isku dayday inay xoog wax ku fuliso labadii ninna waa ku fashaleen nin wuxuu ahaa garaad wiilwaal garaad xirsi garaad faarax baa la odhan jiray dadkii wuxuu yani ciidan buu isagu ka samaystay gudaha qabiilkiisa niman la yidhaahdo bartire ama jid waaqba markii qabaa'il badan qabiilka anigu waa sheegaya maxaa yeelay haddaana sheegin fahmi maysaan waxba maxaa yeelay qolada ku shaqaysata maahi laakiin sugaanta waa sheegaa wiilwaal wuxuu dad laayo oo dad dilo gacmahan ka hadlaa wiilwaal wuxuu dad dilo oo loo geli waayo oo rag baa ku soo baxay iska celiyey mahmaabuu reebo wuxuu yihi rag wax kasta ku sameeyey rag wax hooyadoodna waa u hayay buu yihi rag walaalo wuxuu ku dhaamo waa waay wiilwaal baa laga hayaa taa ugaas xaashi nin la oran jiray isna oo ugaaska ahaa ogaadeen reer cabdille isagu ciidan ma samaysane minilaki boqorkii iyo xabashida ayaa wuxuu yidhi soomaalida waa in laga qaadaa cashuur oo cashuur see looga qaadaa madax ka tiris madaxa waxa weeye waa dariibati raas bay oran jireen waagi hore dadkii waa diideen soomaali mataqaan cid yani talis dhexe weligii ma jirin oo soomaalida la siiyo mataqaanaa cashuur lagu bixiyo waa carareenoo marka waa ka guureen meeshii ciidamadu ka soo gaarahayeen isna ma soo gaari karinoo waxba ma haysan baabuur iyo buquul bay fuushan yihiin askartiisu ugaas xaashi intuu u tegey melilakbiyo anaa khasbahaya ciidana si dadku inay cashuur bixiyaan maalinkaasaa laga gadooday geed baa lagu shirayey 7 nin oo 7 jilib ka socota oo wada gabayda ayaa nin waliba gabay tiriyey uu duubka kaga qaadahay maalinkii baa u dambeysay wuxuu guddoomiyo isagana ugaas xaashi waxaan u dhacayaa dhaqanka soomaalida marka kaasi wuxuu ahaa guddoonka waxaa jira garta iyo geedka shirka ayaa jira waxaa la qiimeyn jiray oo dhaqanka soomaalida ka mid ah ninka garta yaqaan wax kala goyn kara garyaqaan baa la odhan jiray meeshaan hadda garsoore ka nidhaan waa garyaqaan gartuu yaqaanaa waxay raggaasi ku kala baxayaan buu sheegaa oo guddoomiyaa oo waa la doonaa markii la isqabsado nin walboo yani lama keeno nin la oran jiray qawdhan ducaaloo gabyaa ahaaye waxaa isu gebi jiray cabdigahir labaduba 2 gabyaabay ahayn oo reer hargeysa ah waxbay iska sheegeenoo cabdigahir marka qawdhan ducaale marka cabdigahir wuxuu ku ceebeynayaa oo ku cambaareynayaa oo ku caayayaa inaan aabbihii garta aqoon oo xoolaha iyo ariga iyo iskala joogi jiray meesha marka raggu shirka ku jiro shirdu da'ah buu yidhi shirdu da'ah haddii la isu tago dagalka gaaroodi oo raydabtii loo dugsiyey dahab la waageeray da'rool muranta baanaha markii laysku wada daaray halkii raagan loo dooni jiray daabicii ficilka dala buu ahaayoo warsame loo dambaab warsame cabdigahir waxaa la odhan jiray cabdi warsame baanji waa tii faqii laga diro daababkii qore ortag baa la yidhi waxaad samaysaa
haddii aan ku hangoolada iyo u samayn jiray malaha waa tii faqii laga diro daababkii qorayay dadka ceeluguud uu aryaha didiye mooyaane intee buu dacwiga loo qabsaday deyrifada reebay buu anaa gar ma aqoon buu leeyahay wax kale maaha dhaqan baa soomaalidu lahayd oo xididka ah in la burweeyo oo la xurmeeyo guurka ayaa dhaqan gaara lahaa isaguna waxaa ugu horeeya doonis waxaa ku xiga gabaati baa ku xigay waxaa ku xiga yarad waa aroos baa ku xiga dhibaad gabadhu soo doonato gabadhii wax la siiyaa ku xiga intaasiba waa mid kastaa kitaab buu leeyahy gaara dhaqaalaha imow dhaqaalaha soomaalidu xoolaha nool ayuu u badnaa yani beera waa jireen ma badnayn waxaa laga hadlaya oo percentage yani imise boqolkiiba xeeb dad baa haddii aan kugu rooya xeebahaas bari iyo ka shaqaysan jiray oo luulka iyo waxaas iyo khaliiska xiriir la lahaa waa jira laakiin wax weyn iyaguna ma ahayno laftoodu ama beer ha ahaato ama haddii aan kugu roon yahay bad ha ahaatee waxay ku xiraayeen mar walba ku xiraayeen miyiga oo xoolaha miyiga nin walba xooluu miyig ku lahaa markaan uu ka shaqaysanayo arrimahan kale xoolahaas soomaalidu waa saad og tihiin waxay ugu jecleed waa geela wey waxaan idhaahdaa waxay mararka qaarkood waxay ku sigatay soomaalida qaarkeed inay geela caabudaba baan idhaahdaa yani jacaylka ay u hayeen maxaa yeelay ninkaan geel lahayn wax u suuroobaya lama arko hadduu geel leeyahay laakiin uu xoolo yahay doqon ah warkiisaa la maqlaya hebel noo geeyaa laleeyahy haddii gabadha gabdhaha ugu qurux badan ayuu haddii ala ku roon yahay guursanayaa weerar bulxaan nin la odhan jiray baa waxaa la yidhi yaa gabar jeclaaday xoolana ma haysan nin la yidhaahdo nuur idinla isna la jeclaaday laakiin xoola haysta gabayna ma yaqaan hadalna ma yaqaan waxaa la yidhi nuur idinla ninka la yidhahda weerar bulxan waa gabiyaa hadal iyo haddii ala kuu ronya xikmad buu gabadhii kaaga qaadayaaye maxaad haysaa meesha ku haysaa wuxuu yidhi cagweyntaa gabi cagweynta waa geela aakhirkiina isagii bay u dhacday ninkii gabiyey marka gabayo badanoo waxaad helaysaa geela yani jacaylka ay u hayeena oo la yaab leh waxaa ka mid ah asman xasan darin la odhan jiray wuxuu yidhi badda jeexaya iyo biriga jaanta mariyaaba walla geel jacaylkaan u qaba waa u jira rabi ruuxa axmed dirir ninka la odhan jiray isagana waxaa u yimid soddonkiisa wuxuu yidhi hal islaantii gabadhii uu qabay baa waxay tihi marka aabbahay hal markaa dhashay bay tihi hala siiyo siin maynuu yidhi waxay tihi waa yahay awr sii yani kaga soo baxo jilaalka wuxuu yidhi bixin mayno waxay tihi waa maxaa dhacay wuxuu yidhi ariga wax ka sii wuu gabiyo wuxuu yidhi ari iyo lo-baa lagu baxshaa aana kuu timid arlaaga geelaa naftaa lagu ilaashaaye kolay aabbahaa tahay nin kale looma aamino cabdigahayr waa taqaani ninka hadda sheegaya wey wadaaddaa waxay yidhaahdeen duulaanka iska daayo kaana raac qur-aanka baro isna awr ma haysto oo inuu duuluu rabaayo geel soo dhaco geela in la dhacaana dhaqankay ka mid tahay ceeb maaha waana u xalaal iyaga xalaal bay ka dhigteen oo ninka ariga xada iyo ariga dhaca iyo ayaa la ceebeyn jiray laakiin geel ninka dhacaa nin ragu ah hadda dad baa waxay leeyihiin geeliiba xamar duleedkiisa ayaa lagu xereeyaayo sidii loodiibuu u fadhiyaayo afkan wax laga siiyaayo marka waxaa la yidhi geeli waa micno beelay geelaan la kala dhacayn geel maaha cabdigahayr wuxuu yidhi marka gabayo badan buu tiriye wadaadadii buu la hadla kusoo noqnoqdeeno iyaguna ajar bay raadinayaan isna geel buu raadinaya wuxuu yidhi idin bacasa awrkay dhashay idin bacasa ashqaaha buu maqlay moogta wuxuu u qabaa magac hal magaceed idin bacasa awrkay dhashiyo aarankay wadatay aakhira inaan geel lahayn lama ammaanayn maxaan idinla awlaadsadaa awr ma dhaansada buu yidhi ratiba ma haystee
markana wuxuu yidhi magaalada Hargeysa berbera moodka waxa geeya waa badeecada oo adari maarsee ka dhigay muranku waa ceebe waa muruq adoon loo ratiga micida waaweyn marka buu adduunyada u yahay macallin oo geeray nin waliba macnaha loo dhaqdo maanka ku haya muraadka ku toos awgay oo hay markay kiin oo dantaada qabsiyo hawlaha guud waxa ugu daraacay luux niman sare u sheegayo geel buu ka soo dhacay niman culimo ah oo xer ah xertu geela ma xoogsanay dadkaas siiya si quraanka u bartaan iyo wax waago hore jiray wadaadadii baa ka daba yimid wadaadadii geeli dee waa la kala leeyahay mar hore qaybsadeen nimanka colka ah oo cali dhuux intiisi waa diiday anigo geeligu arki maysa awgayo wuxuu yidhi sanad bay mareen awgay oo sanaan u weynaayeen ninkaan sidiiya xeemaan lahayn sharaf ka dheeraaye karuur showre caanaha shamaal looma soo shubo shacabkana ma dhaafo oo badduu shaba ku tuurtaayo shuqulka gaalka kama maarmo iyo shaahu kariyaa gaalada u shaqeeyaa ceeb la ahayd booyiga aniguna shahiid waa waxaan shiiluhu u ridaye shiinkiiyo wardiga aad akhrii shicirku aadaanka waxba haysta rabi waa arkaa sheekh inaad tahay waa kuu jeedaa inaad wadaad tahay adiga adaa dadku wax ku siinayaa aniga waxba isiin maayaan waxaan dhacahayna ma aqaan adigaa shilaabiya yaqaan sheedihii webiya adigay degmadu kuu shireen wanan la shiiraay intaad ayar sii sabaxsataan fiiqsa garowgaaga adiga garowgaa kugu filan iyo masagada iyo haruur aduu saasay ahayd macnaha waxaan ka wadaa dhaqanka geela yani halkaasuu ahaa tii madaxnimadana waa aniga idiin sheegay waa ku dheeraan maayo dhaqamada aad iyo aad ayay u badan yihiin mid walba murti iyo maahmaaha iyo haddii alla ku leeyahay waxaa laga helayaa hadda waxaa noqday bahalkii online .com marka waxaan furayaa bahalkii aada carab baan u soo dhacayaa marka aada carab waxaan ka bilaabayaa buuggu wuxuu ka kooban yahay 6 qaybood wey waa 1940 markuu gabayga bilaabay isagu waa markuu gabayga bilaabay 1950 waa qayb kale 60 waa qayb kale 70 waa qayb kale 80 waa qayb kale 90 iyo burburkana waa qayb kale intaas uu qaybsan yahay saasaan u qaybiyey adan carab gabayga markuu bilaabay nin yar buu ahaa ragga saasa waxay jecel yihiin inay isku taagaan nin ka weyn oo la yaqaan si uu ugu soo jawaabo oo loo barto adan carab ismaaciil maraya wuxuu isku taagay ninka la yidhaahdo cali dhuux inaan la isu gabyin oo qoladii ay ahaayeen labadaa nin oo odayaasha ah iyo qoladiisu jiribkiisu inaan la isu gabyin baa lagu heshiiyey ninka gabyaaga afkaa dhaqdhaqaaqa ma joogi karo hagabyin lama oran karo isma xukuma markuu ku soo dhaco gabaygu ku soo dego isagaa wadaya ninka la yihahdo carab u agabiyo labadii ninba waa isu maray labadii oday wuxuu yidhi suulkii laasadaar la isu dhigay suuro noqon macnaha ballankii bay ka baxeen buu leeyahy qowlkii sangaha laga xukumay loo saldhigi waaye sandhal weeye nabadday doraad nala saxiixdeene siyaadiya ninkii 100 jiraa seyra dhaaf noqoye suufigan ismaaciil mire iyo saantan cali dhuuxa fiiri suufi buu ku magacaabay midna wuxuu yidhi waa saan waa da' buu ka wadaa wuxuu yidhi suufigan ismaaciil mire iyo saanta cali dhuuxa salabyada dadkii lagu daree seexashada diiday saanreebyadan aamusayn sayn caddaaga ah ismaaciil miraa gebiyooo u jawaabayo adugu waa waxa atoorka geesku uga baxay eribi atoor waa taqaaneen waxa atoorka geesku uga baxay eri biciid weyne markaan aada carab oo sidii aarka kugu yeero oo aan axsaab kugu akhriyo 1000 aada laaxin baad ku aflaxday alifka kuu yeersho oo aan areenkaa lulaad idibsan doontahay gabay caynkaasuu tiri oo xoogaa dheer cali dhuux laakiin ma gabyin 4 eray buu ku yidhi waa yasay cad hadduu carrada kaaga dhaco cad hilib ah cad hadduu carrada kaaga dhaco
hadduu carrada kaaga dhaco ama saciidoobo caqlinibuu kuwan yahay ma cuno calafka qaarkiisa anigana carruuraha yaryari waa iga caynkaa maxaan aadan carab kala hadlaa caqil baan ahay ninka la yidhaahdo wuxuu haddana isku taagay samatar baxnaan kulli waa ka weeye samatar iyo isagu carab askar buu qortay dhowr iyo soddonkii 55 xamar buu yimidoo aftaraani xoogaa eray buu soo bartay aftaraanigu soo bartay wuxuu rabaa inuu ku khashinsado samatar iyo dadkii baadiyaha jooga ku haray samatar buu u gebiyo wuxuu yidhi ariga iyo geela iyo intaad awrta dhaqanaysay aniguna arlaa'iga dhul baan kaga aloolaay iskuulkeeda xamar baan tegey iyo adarikeedii iyo waxaan ahay afkii liibaraad niman ka oodmeyn liibara waa bug la oran jiray liibara birima liibara iyo aftaraaniga laga barto waxaan ahay afkii liibaraad niman ka oodmeyna una koosa adigaan aqoon una koosa waa wax yar hal xabo una koosa adigaan aqoon uuba haysgelina imbishiile sow yurantii oo kuma aqoon dhaamuul kulli waa talyaani samatar baxna ma yaqaan samatar waa gebiyo wuxuu yidhi askarta horta waxaa kuu geeyey buu yidhi waa fakriga iyo wax la-aanta waxa aad keentana lama arko aadan carab baa gabay wuxuu tiriyey aadan carab intuu askarta ahaa gabar qurux badnaydoo yaa waxaa guursaday yaa waxaa doonay nimankan reer baaraha iyo la yidhaahdo iyo nin haddii alla kuu roon yahay dadka garaha dad aysa aqoon iyagu qolada isagu askarta ciidankii qaybta u ahaa gabadha bay damceen inay ninkaa kale ka hoos bixiyaan u diidaan aadan carab baa marka gabay tiriyo waxaa ku jirta inan yahay aftida nooga timi adiga ruuxaaga ee uumiyaha soconaya iyo aariyadu keentay wuxuu yidhi haa ilowsiiyo ma leh waadna heli aayatiin badan ee ubadkaagu koluu noo baxsado waa amuur culuse abtay gacanta keen inaadan rabin obiya reer baare waxaan kaas u akhriyey abtay gacanta keen abtay gacanta keen waxa gabaygii baa wuxuu yimid hawd iyo buuhoodle iyo ka soo horreeyey isaga samatar baa ugu halqabanaya marka wuxuu yidhi nin adduunyo waayaaba waa alabasaya haddaa adduunyo weeye hadda meel baa ka dhacaysa ariga iyo geel iyo intaan awrta dhaqanayay ee aad ordaysaad fadhiday adaridaad sheegtay adduunkana ma aad keenin iyo ayre iyo laane abtay gacanta keen baad lahayd inan qaxaabeeda buui haddaad se aragtay udubkaanu nahay urursanaantiisa asaa aragtay uun reer axmeda oo arlada buuxsha ayaxa iyo xoogaa wuxuu ugu faanay tiro carab baa ku faanaya waana ilmaadeer labaad wey oo wallaahi odaga afraad bay ku kulmaan qabiiladu inaysan abda lahayn baa idin sheegaya caawa haddaad aragtay niman reer wuxuu yidhi haddaad se aragtay udubkaanu nahay urursanaantiisa asaad aragtay uun reer axmed oo arlada buuxsay ayaxiya awoodiga gurtay alamsadee laasta bal kee adag af soomaaliga eega kaam annagu tayan leenahay buu leeyahy tare wax ku falameyn waa ka boodboodayaa wixii aan ku soo talagalay gabayada xiisaha leh oo buugga ku jira waxaa ka mid a gabayga la yidhaahdo erago oo silsiladii reer buuhood la dhalay gabaygaas gabaygaa waxaa tiriyey in la yidhaahdo axmed dirir gabar agoona ayuu doonay oo ka doonay adeerhadeed waa la siiyey gabadhii markii la siiyo u bogi waayey hadhow awalna wuxuu qabay eedadeed iyada ah oo abshiro la ohan jiray abshiro xoos ayuu qabaa oo carruurta waaweyn u dhashay gabadhii iyo reerihii iyo dad kale ayuu cagta mariyey weligeena nin lagu yiqiin buu ahaa maarata xididka inuu u gabyo xataa oo arrin ceebana weeye dhiiranaan aan fiicnayn aadan dirir wuxuu yidhi marka gabayga waxaa keenay wuxuu ku halqabsanaya aadan carab oo ay ilma adeer yihiin oo uu leeyahay wuxuu rabaa inuu u heeliyo hadhow amarkii ilaahay iyo waktigu waa wax kaa adaga nin aan baday halkuu aad ereygaasaa la yaqaanaa soomaalidu taqaan
nin aan baday halkuu aaday waa ula ekoonayde anigoo arkayaan waddada ee ragga xulaaye abtirsiiyihii baa ii hoday aada carabow gabadha reer habeesheedii baan ku sirmay buu leeyay maantaan adduunyada baxshaan inanta doonayey usha dheer markaan geelayaga ugubka soocayey abeerka iyo qaalmaha markaan u intihoon waayey ebyoon iyo markaan miiganoo oloshay laameeyey arrinkaa isagaya haddaan uumiyaha baadho ama reere aan soo agmaray aanan ka ilduufin aan abikar iyo tuuryar iyo aada gacal dadkaas uu caahaya waa qabaa'il kale dadkaa uufanaaga uu leeyahay uufanaaga waxa weeye waa weynaha yareerka oo dadkaa uufanaaga haddaan adhijir weydiisto idahayga iyo naylahan idag wadaageene isla joog baraarliya wan weyn ma arki waayeene wixii kale ilaaweye haddaan aqalka layda wuxuu ku warramay oo idinka soo sheeka dhaafaye inan layaal buu ahaayo reerkuu la deganaa gabadhiibu wuxuu ku yidhi waxaad yeeshaa aqalkayaga aan leenahay waa guuraynaaye oo reerahayaga baan u guuraynaaye aqalka aan leenahay hal awr ma qaadee oda reerka awr nooga doona u soo celino ta soo noqotay tiri waa la ii diiday mala halkaasu ka xanaaqay ma aqaan wixii kale ilaaweye haddaan aqalka wuxuu ka dhigay aqalka in laga daadiyey oo intuu awrkii saaray laga daadiyey wixii kale ilaaweye haddaan aqalka laga daadin oo awraan gaadiida cishada la ammaaneeyo alxamdulilah mooye wax kalema waa iraahdeen wuxuu yidhi ayaan iyo wixii laba waxna oyda gabar aabba leh oo ehel u muuqdaayo agoonnimadu waa wax cidlada loogu awdalay anigana asali bay daraad igaga iibseenay qof laga iibsado u ka dhigayo qof asali carab wuxuu ka xanaaqay abtirsiiyihii baa ii hoday aada carabow oo wuxuu yani gabadhu qolada ay tahay inuu ila dhaliilo ayaanu doonayn oo hadda garaadkaaba ka qaba uu leeyahay garaadka reeraha ayaa isla ciddaa lafteeda ka qaba see baad u odhan kartaa midda kale wuxuu rabay inuu god ku rido aada carab waa garta marka wuxuu yidhi axmedow ikhyaar iyo ninkii oday la moodaayo ee xaajadii oodanta iyo ururka loo doono ama shay amaarada khalqiga kaga amuuraysan ama yuu ahaan beefilkii ugu abbaaraaday waa inuu ilaashaa waxaan lagu ammaanayn durba inaad arooskii cusbaagabay ka aasaastay aad gabar yaroo udubcada iyo ugubka ceebaysa ay eragoobaan ka dhacay arartu kaa jiidhay aartiiga iyo taarku keen ooga iyo ciiday waa la asturaa xidid hadduu inba leeyahay haddii xididku hataa ceeb leeyahay inaad sheegto ma aha teer iyo ismaaciil intaad qole idaacaysay uurjiif hamoodina ninkani waa abwaan jiray maantana halkaad ka iltiqiin oonku kuu qabay dadkoo ehela uunkoo hurdoo kale asluubaysan sow xuma ninkii loo ibabaxshaa ehelu naar maaha anse inuu isaaye igu yahay maagan magacan eediisu magacayga aad soo qaaday oo gorob igu keenayo aan ina adeerkaana ahay aana qabanayso aan aadka kaa hawdileen igu astaynayso aad gaadan raacdada anfiya iyo aslaxanayso aad orodka qaylada dambana iila iman doonto waan ku arkayaa waxaad istiri sii alaabtumo kolse haddaanan kuu iibinayn eexa dhinacayga guuleedku waa gabadha qolada ay tahay guuleed caligari baa la yidhahdaa guuleedku abidkiiba waa duul asal ahaayee odhanna maayo waa lagu ambaday reer ileeyana nin ilaalo badan baa kuwaas soo ardaa dhiga bal inay itiya raas yihiin unku wada doortay waa kaa ugaaskeeni degay ili xirkoodii iyo meel baanse eelka u daniyey uurka fahankiiyo iyadooy aloostu u dhan tahay igar hadduu diido aar fuul maqaarkuu kabuun ka ursanayaaye oorida xaggeedaad malaa eebaduu ridi macnaha gabadhaad salugtuu leeyahay cidda maaha isaga umiya wiil hadduu inan ku liibaano ragba inuu asaageed helo ku arrin sheegaaye guurkii horaad ku ilheshood u alwanaysaaye naagaba waxaad istiri waa abshira xoosh abshira xoosh naaguhu ma wada aha buu leeyahay oo dee maarata tanna maba aqaan sheer dambaan axara mooyaane laakiinse aadkaba hadday urursanaa weydo iidaamo labadoodu waa ulya diirkeed gabadhii eedadeed weeye isku haysuu leeyahay maarata gabaygaasi wuxuu dhalay silsiladaha maansada soomaalida midaan ugu jeclahay mid ka mid a halac dheere iyo gube iyo anugu tanan ka jeclaha
waxaana ku jira hanjabaad la yaab leh oo aada carab nin cumar cigaal la yidhaahda aada carab yani u gebiyey oo isna gebyaa weyn oo reer buuhoodla ah wuxuu marka isagu axmed dirirkii gabayga hore lahaayo eragooba u hiilinaya axmedkaad bushiday aadanow kuguma beegnayn baryay wada dhasheen aabbaha kaad u bo-aysaaye caligeliina waa kuugu bogay kuuna baalgeliya inaad xididka kale baadhidaa kugu bannaanayd adigaan gartii baarin baad bogatay liishaan macnaha ninkii baad eedaysay adigaan gartii dhegaysan buu le beeldaajiyaan kugu wadaya boqorka reeraaya bahdilla inaad tahay war baa iga kaa baxaya markaad nimanka buuraha ceshaday baadil fahamsiisay barbaartooda iyo lookaladu way isballamiyeene sidaan baar cadowday jaraa lay birdhibsaday weliba buufna waa igu direen beesha reer caliye nin walaalkii boqon goynaya waa berri u jooge bogsan maayo reer hagar ninkay baha isku raaceene buruudkooda wiil qarad la baabi'iye maantaase weligiinba beeshiina waad bari furayseene hadday boqol nin igu soo kacdoo la igu boobayo bilmad iyo haddaa aadan carab booqasho u doonto alla ilaah anaa badow waxaan biidna garanayn so aadan carab saa uma oran maxaa ka raacay hadda horta wuxuu ku qabsaday silsiladda maanso waa inay isku xaraf tahay cumar cigaal labada ninoo hore waxay ka gebiyeen alif cumar wuxuu ka gebiyey ba taasuu horta ku ceebeeyey aadan carabka ku ceebeynaya wuxuu leeyahay ma bedelo ninkii gabay yaqaan xaraf bilowna hadda beydka kii hore maruu budulka raacaaye beydgaab waxaa lagu yaqaan booda dheerida mar haddaadan maansada binayn baabka soconaya waa inaan adaa barad noqdaye laga boqolsiine ba'da uga tallaab alifku waa baadidoon xumo meeshii haddii laga bedelay baanisadu joogtay aniguna xaggaad ula baxdaan kaala boorkicin balaan caawa baas lagu dhintayo rida berigaanka wax bog leh iyo wax beer leh iyo nimaan beesada cas cumar buu leeyahay sabool baa tahay dan kama lihid waxa dirira iyo waxa islaaya dadka dhimanaya shaqo kuma lihid adigu wax bog leh iyo wax beer leh iyo nimaan beesada dacas haysan oo boqol ka jecel wiilka curad biibana u jooga inuu dunida boob ugu tashaawo u bannaan tahay goortaan xigaalkan isku ba'ay boon u kala qaaday aan idhi baktii ololku yuu baadka weyn tegine bar ma dhibine qodob baa ku baxay showbaterigiiye gaariga birii gala miyaa igula kaa bayray gaari bireeg aan lahay inuu saaran yahay buu ka dhigaa bal maxaan ku baaqday tolkay bari furkiisii boqor iyo haddaad ii taqiin aniga beeldaaje iminkana halkaan buuxiyiyo booska inaan joogo aan ficilo wiiliga badshaa bari ka soo toosin aan gabadh bilaash iyo anfaco boholya ii haynin oo aanan tuug baytintiina baadifad u qaadan cumar baa waxaa la odhan jiray haddii wax la xado isagaa loo tegi jira oo la odhan jiray bal noo fiiri cidda xaday marka waxbuu tafaafuli jiraa la odhan jiray tii buu ku caayaya oo aanan tuug baytintiina baadifad u qaadan ay bixiso cumaroo waa bixiso cumaroo waxaad ugu bareedhaay walla inaad biyahay odhan afkana barax ku qoyn waayen cumar cigaal wuxuu yidhi gabay keligaa ma lihide waa lagula leeyahay rag baana soo baxay markaasuu wuxuu keenayaa intaasoo yani daliil ah ingiriis berihuu dunida cunay baadda loo qoraye in badiiradiisii la rogo buugga yani in yani hargeysa inta badiirada ingiriiska laga rogo mid soomaali la taago cidna ma filayn buu leeyahy adiguna waa inaad filataa in gabayga rag kugu soo baxay in badiiradiisii la rogo buugga kuma haynay isagaan barqaba toosin baa buun ku soo dhacay soomaali baahdaa qabsaday barandayaashii iyo nimankii bustaanada xabsiga wada biyeynayay prime minister iyo bay noqdeen baashe iyo kiin banka waxay ku tamasleynayaan baylan iyo jiiba in adduunyo boob lagu helo yay badowdu moodaaya sida eebbahay wax u baxshaa waa u bannaanta gabay caynkaasa ayuu tiri ninka la yidhaahdo carab baa ku soo noqday waa ogahay waxaasoo dhan waa ogahay buu leeyahay laakiin hal baana qirsanayn in buuhooda iyo agaarkiisa dad gabay igu haystaa way ka soo bixi karaan taasi meesha kuma jirto waxyaalaha dhacaya oo lala yaabo maaha mataqaanaa waxa dhici kara dhulkoo boor leh inuu eebbahay baraha roob keeno oo uu nabaad buuxiyo iyo bilic ka soo saaro
uu beerahoo laga sabriyo baadka soo celiyo uu kaymo baarqaris ahaa haatan badh u doorshay uu bacad ka dhigay aayahay boga ka foofaysay aan geed bilcila loo aqoon bogax wixii jiifay aan toobihii bari lahayn baarqab wuxuu laaco uu saaka adigoo badqaba cudur bukaan keeno uu caafimaad lagu bogsado badanka gaarsiiyo uu kala bedelo xaajada beriba suu doono uu baan u tumay gaaladii buugga subax laabtay ma biciidsanina waa cilmiga noo bayaanka ah buuhooda weynaad ku garan baabka uu yahay isagoo bannaan baan ogaa aan bandar ahayn dhaxay haraad ugu baseen baydari iyo jees waayana kumboos iyo ashkir lagu boqoolsiye waayana wadaadkii ba'naa sayid maxamed baa bardegey wadaadkii ba'naa buu u yaqaan marka isagu waayana wadaadkii ba'naa loogu baalgeli waayana burkii waxaan la cunay baanto loo qoray waayana ilaalada bariis boobnay raashina waayana kufaarkii baashiya boodhalaa degey iminkana baraagaa la dhigay baariye sabankii in barbaar iswaalaba garkaa booshka ka caddaan bikrana waxay ahaan habar fadhida bul dukaafada bilba waxaanan maqal amase arag weli bidhaantiisa oo buur ka culus baan indhaha biriq ku siiyaaye wuxuu wado wuxuu yidhi geeluba biyaha waa nacaa ceelka baalida bakaylaha ma geeyo aar inuu saaro baariga bamka uma samayn ruush inuu nimaan wax u bilownayn sange booda baqal waa ku ceeb maysu badadnaa aniguna inaan kugu burburo wa iska bidayaaye marse haddaan bushmaha kuu furfuray buuri baan cunay haddiise aqalka jiir kaaga baxo waa bisad u doon kuwa adiga kugu beegan baan boos u dirayaa u buraan burxaaska iyo dadkaa biilka kugu yeesha weli weeye ma dhowa cumar cigaal waa gebiyo gabay aanan haynoo aan wax badan aan ka haynoo wuxuu yidhi barbariya sinaan waxaa ku jirta gabayga oo aan dhaafay barbariya sinaan igawalaad iigu soo bixine bal wadaadu waa aadan bay beri ismaageen intaasaa doonaysaa buu wuxuu yidhi kana barbariya sinaan waa anigaa dhaafay 100 mayl waxaan kuu bannaan imi markuu baadku kaa qoyey bixi dhaawac lagu raadsado baydadaa tahay berinkaad istaagta anaa kaaga soo bixi bu gabayga marka cumar cigaal aadan carabtiriyey oo uu yidhi cumar cigaal ha ku haro waa midka soo socda aniguna aan ku eedoobay cumar baan xamar ku arkay 1990 ba u dhintay wax yar ka hor waa la iskaaga baray markaasuu yidhi waad iga hiilisa maxaan kaaga hiiliyey waxaa tiri buu yidhi haddii gabay lagu dhimanayo cumar cigaal baa ku dhiman lahaa baa tiri buu yidhi oo xagee ka raadi boqolta waa jirtay gabaygii marka uu ducan inuu ku reebo laakiin ku hari waa cumar wuxuu yidhi nin qawici waxaan rajaynayaa in la fahmo erayada laakiin dee waa adag yihiin waktina uma hayo aan mid kasta ku sharxo nin qawici weel kuma qanciyo quud mar loo dhigo oo isagaan aroortii qulbamin koluu qaraab doonto waa ku qablamaa shilin halkii loogu qoray biile anna wiilba ima qaarajay qaafilaan rabay bu hal nin anigu umaba gabi aqaan buu leey goortaan qureecdee dad badan soo qulqulateeyo aan 10 qoloo wada qalyana qoorta kala laabo aan inan gumeed kuu qosla oo qarad la soo jiiro aan adandaranaha qaldamay qoobka soo mariyo aan kuugu quus dhabo kuwaas kula qabaal jeeda aan soo quraacdhaan ku gelin qowlalkaa bidixe waan kugu qadayn sida bariis ay qasaasilaye waataan wax badan kaa qawaday aan ku quursadaye waad i qasabtaye lama hadleen adiga kayrkaaye in qumbulad miskiin lagu dhiftaa ma aha qaynuuna inkastuu khasaare igu yahay qaaya gabaygaagu ansaaladaan kugu qasiray qalabba loo haysan uu qaali yahay waa garnayl waxaan qubayaaye waa kuu qasdiyey miinaday dhaguhu qaysheene qabka ku hor socdaa igu wacan qarash garowgaase qalbiguu wax kuu dhibay wakhtiga kugu qalaadaaye qumanyiyo dabayl baan hubaa inay ku qaadeene qandi baa yebrigu kula tageen qalabadaadiiye shaydaanna kaa qaalib noqoy ku qodqoteeyaaye qarafaysigii aad xaaji nuur ugu qardaynaysay qumanaasha kaagama dambayn oo qolfaa tahaye sidaad maalintii qadaf u tiri wa iska qarowdaaye weysay sanaad qaadda waa niman culimaaha u gebiye cumar cigaal mar hore
weysaysanaad qaadacday ma qalaalaateene qoonkii dariiqada markaad wada qardoofaysay iyaguna qardhaasay falkay qalindareeyeene qorigaagu waa maarahan qaranki nooglayne qasharkuuna kaa goosan jiray qayladoonnada ee bal inaad khafiiftay oo caqligu kaa qasabadoobay qarib iyo shacays baad hubkaa ugu qumaysaaye raggan quxubka kugu faanaya ee kula qaxweynaya ee qoobka kuu qooshaya ee qoronta kugu shiila aad sheekadoodaa qabow qadarka moodayso ee qowlka kugu soo dabay ee kugu khiyaanaya ee waxay iyaba ii qireen kugu qaaraya ee boqor qadiimiya ku yidhi qonash ha kuu geeyo waa inaad khilaaftaa sirta ay kuu qolgorayeyne qudraba uma hayaa kaaga filan qaatilkaa ba'dan isagaa qaatilka isku sheegaya awrka qoorka iyo awrka dhufaanka waa kala taqaaneen qoorkaba dhufaanku rusqatalay waa u qoriyaaye maandhow misana qiimi male qooqa luraya qalac iyo fajaasuu dagaal kaga qaraara awrku usoo qolob dhowday oo looga wada qoofay goortuu garbaha yaro qabto oo qoon yar ku xariiqo qayraami gooji iyo cabaad qoofalkana gooy innagana qisadu waa la mida qaafil baa tahaye qablankiisa keliyuu libaax kaa qarqariyaaye qalanjaha maroodiga waa laga qamaadaaye qaatilu naf baad haatan tahay soo qamaar tegay ee qabrigii iyo xabaasha baryahan kuu qabyala aayee isma qaban karee waxaad istiri kan isku qaameeye qaska iyo wareerkaa ka dhacay dunida qiiqaysa aan qaboojiyaad iigu timi mana qalloocnayne aniguna hadeer baan ku qaban qarafka baaruudi afartaa qiblaba liifadaa loo qarxinayaaye quwad iyo waxaan cudud lahaa qoorigan dhigaye goortaan ku qaabilay hagooghaas ka kay qarine bal ka qayb gal maansada haddaad ka qatanan weyd waa dheer yihiin maxaa la yidhaahdaa gabayada ma rabo waxaan rabaa hal mid inaan ka doorto iyo laba keliyaan ka dooranayaa aadan carab waa ka baxayaa iyo waktigiisa waxaan gelayaa waagii dowladda siddeetanaadkii 1980 waxaa ka dhacay waddanka soomaalida abaartaa markay dhacdo gurmad baa loo samayn jiray dadka reer miyiga waa soo dhamayna idinka ii yartay maxaa yarta abaarta marka iyagu waxay ahaayeen waxaan hadda la yidhahdo qoondada dadkii waxbaa loo diri jiray gobollada baabuur iyo maataqan shidaal iyo raashinkii intaba marka buuhoodle dee gobolladaasu ka mid ahaa xoogahana waxaa lagu xaman jiray reer buuhoodle kacandiid inay yihiin waxaana laga xukumay markaa waa burco guddi baa la sameeyey marka guddiga uu ninka guddoomiyaha gobolka uu madax ka yahay oo qaybinaya raashinkaas iyo haddii alla kuu ron yahay alaabtaa qaybinaya guddigii baa adigu waxbaa yani sida aad carab sheegayo waxaa weeye xoolihii waa lagu tegey guddigii bay soo dhaafi waayeen markaasaa la yidhi gabay oo nimankan maad u gabaydi baa la inta loo yimido wuxuu yidhi marka jiiraalku inaga baxo oo haddii alla kuu ron yahay roob da-o baan gabyaya hadda iga daaya waxaa la yaabla marka alcarab wuxuu damcay inuu sheego guddiga uu ka eed sheeganayo nin walbaa qolada uu yahay hadduu sheegana waa la xidhayaay waa qabiil lama ogola si kaleu u farsameeyey markaad arki doontaan wuxuu yidhi guddigii ibliis noo qabtay iyo goosatada hoose ee aan guddoonkaba maqlayn goluhu soo jeedso iyo gaaniyow idinba qaar fadhi ku goodaado iyo gobolka baas nagala bayrgar iyo qaynowne iyagaa gasbaday ceebna waa garabsanayeene waa inaan gumaadoo kanfaa gumaladoodii maantaan hilfaha u qaadayaa buui abaar guuna sabankii ilaah nagu galooleeyo kolba madaxda guud iyo siyaad markii hore siyaad iyo kuwan buu wuxuu leeyahay wuxuu ka baqayaa inay kusoo degdegaan odagu iyo guddigii sare iyo dowladdii buu iska moosayaa marka hore abaar guuna sabankii ilaah nagu galooleeyo kolba madaxda guud iyo siyaad waa guntanayaane galadii horaanba u hayaa gocaladeedii waa 4 iyo 70kii maantana
xilkoodii gute ee waa la gaasareeyey iyagoo gumaysiga jahaad ugu garxiiraya oo gelin kastaba beel qaxa iyo geedi imanayo ay gaaban tahay maaliyada gabi ahaanteedu gaadiidka naafta iyo biyey gura yidhaahdeene rag garaadaraasa u tashay oo waana gowracayo uma soo gudbaan shicib wixii lagu gargaaraya gaadaa fadhiya meel dhexe oon gobo i dhaafayn ha la soo gurmado tuugtu waa nagu gabaadaya waa tan marka meesha nimankaa qabiilkooda uu ku sheegaya mid gasiinba quulla u ahaa gurigii uu joogay buu yidhi mid maraaxaana guddoomiyaha gobolka awey marka waxaa lagu xantaa quulla cunaan waxaa ku xantaa dadkaa kaloo la dega mid gasiinba quulla u ahaa gurigii uu joogay iyo kii gallaydiiya ku koray garowa reer baare mid jareera iyo kii gisaarkaba ahaa hilibka googooya kuwa reer berbere ah iyo kii galbeedee aan dhigayn gorofta cayreedba mid ogaadeena weeye wuxuu leeyahay iyo kii gabooyaha sitee goodirka ilay dadka laga badan yahay iyo garas cunkii joogi jiray goodiyada xeebta waa bari intaasaa adduunkaa gurana guurti loo fileeyo waa guluf ka yimid maata aan geniba loo hayna midba wuxuu ugeeyuu rabaa guracodkii carruurteeda yaraabay wax u ururinayaan buu leeyahy ma garoocanina soorta waa ugu gumaadeena gunta booyadiyo foostaday gororsanayeen inaa lilaahi wa inaa ilayhi gafanaa dhargeen shilin castaan la iska goyn karin gabaareyda iyo caarey waa kugu gadoodaana garangoori iyo waa kudkuda gaajadii qaba alcarab markii alcarab ugu dambeysay waxay ahayd gabayadii 1990 burburkii yani uu ka qayb galay wuxuu uga qayb galay dhowr siyood maruu u calaacalay soomaali iyo balaayada haysata soomaali hoog baa qabsaday gabay la yidhaahdo ayuu tiriyey mar kale nimankii dhallinyarada ahaay oo itixaadka ahaay oo gada qabsaday ayaa oo waddanka inay ku fidaan rabay ayaa buuhooda tegey markay buuhooda tageen wadaadada odayaashii u yeereen waxaa la yidhi anagu waxba ma rabno xukun idinkama rabno inaan haddii aan kunayo xagga cadaaladda iyo waxay de oran jireen dhallinyaradu xagga cadaaladda iyo wax lagu soo galo meesha inaan mataqaanaa ka shaqayno haddii aan kunayo xagga ammaanka inaan ka shaqayno odayaal wuxuu arkay marka u dabacsan maalinka dambaa la shareeyo markaasuu gabay tiriyo gabayga nuxurkiisu waxaa weeye annagu haddaan reer buuhoodla ama reer nugaaleed nahay dagaalkii iyo daraawiishta oo in cabdilla xasan baa weli nagu cusub marka meelaha kale la qabta dadka dihin ayuu yidhi marka gabaygaasna marka wuxuu yidhi in wadaad dikriyaya mar hore duub cad nagu jookay sayidkuu sheegaya uu nagu daraafsaday jannaa dagana ii raaca oo aan daraawiish ahaa diintan lagu xeelay uu nagu dambaabiray markuu darajo weyn gaaray waa waxaan la dabadeebayay iyo diifta igu taal waa waxay dadkayga u arkeen 10 duulaan waa waxay u soo wada durkeen dariisyadaydii waa waxay nugaal nimanka degay igu dangaysteen waa waxaa darceel iyo iga kacshiyo dixida caymeed waa waxaa sanaag looga diray duuda maxamuud derbi xeera ah dayl iyo xirmiyo daaqla kale ooday waa waxaanay dooxooyinkii ugu daldhoonayna waa waxaa danood iyo ibaray doole iyo ciide markaan dumiyey calankan dejay iyo dowladnimadeyda waa waxay dadku u leeyihiin dabaxirkii mee waxaasuu akriyayaayoo dambuu galay hadduu eebbahay duuga qoon jiray duufaano adag baana maray oo dabayla leh wixii faras dushii uumiyaha lagaga door qaatay rabbinamo dulminayaa tolkay loogu dowgalaye mala weliba qaar nalaga daa dayna waa haraya intaasaan ku soo ekeynayaa leeyahay waa mahadsantihiin shukran su-aalo badan ba idaajaha keliya ma ahayn idaajaha haddaanan wax weyn ma aha dhalinyaradu waxay tidhaahdaa yurubiyanka hadda ku afbaratay not a big deal ma aha waxa weeye waxay ii baxday horta anoo weyn ma aha waa anoo yar siddeed jir baan ahaa markay baxday idaa jaa nasrullahi iyo idaa jaa kalmunaafiquuna midnana ma ahayn waxay ku baxday waxa weeye
dugsiga baa markaas soo galay ama malcaamadda sida loo yaqaan dad kale u yaqaaneen galabtii marka dugsiga inta la dhammeeyo ardada la fasaxayo maqribkii waa la duceeyaa wax shaafi la yidhaahdo bismi illaahi shaafi bismi illaahi caafi marka shaafida marka la qaadayo ciyaalkaa qaada laakiin ciyaalka seniorka ah oo hore oo wax yaqaan yaa hore la mariyaa saf bay noqdaan kuwa kale oo alifleyd ah oo kuwaasaan ku jiray aniguna gadaal bay maraan marka shaafidu waxaa la yidhaahdaa macallinkeen allow kaal macallinkiisa allow kaal nin kaleba allow kaal deriskeen allow kaal deriskiisa allow kaal bismi illaahi shaafi bismi illaahi caafi aamiin allahayow saas weeye yani hadda waa kala iloobe waa hore ay ugu dambeysay marka kuwa horaa waxay odhanayaan bismi illaahi caafi kuwa dambana waa inay ku celiyaan alif leydu iyagu male mubaadarada ma bilaabayaan waxba bismi illaahi caafi bismi illaahi shaafi bismi illaahi waa aamiin bay leeyihin anigu marka waa cusbaa 2 maalmood iyo waxaan joogay ma aqaan meesha waa laygu soo dhex tuuray waxba la ima sheegin waxba la ima barin kuwa hore markay waxaa ku jirta marka idaa jaa cazraa'iil hadduu cazraa'iil yimaado waa malakul mowtka ilaahu korna yeelo kalaamkaana deeqsi ayaa ku jirta sidii bismi illaahi shaafi aan ula haystay waxaa la gaaray idaa jaa cazraa'iil so waxaan ka fekeray cazraa'iilka waa maxay cazraa'iil idaa jaa markay yidhaahdeen kuwii hore oo wax yaqiinay kuwii dambana oo aysan ka dhammaan afkooda kuwii dambana aysan waxba oran baan keligay la booday marka aftiraaniga waxaa lagu yidhahdaa foritempo xagga muusiga marka muusiga aad la qabsan weydo idaa jaa cazraa'iil baan keligay iri igama harinba nasteexo su-aasheedii ahayd ereyga naag la yidhaahdo waa oppositka ama ereyga yani u dhigma dhanka kale waa nin iyo naag dhadig iyo lab ereygu sidiisa ceeb ma aha ceeb baa laga dhigay waa laga dhigay waa siday sheegaysay cali afyaro oo dhaliilahaya ragga hadda gabya wuxuu yidhi darka haatan joogaa sidii dumar u sheekay darka haatan joogaa sidii dumar u sheekay marka waa waxa soomaalida waa ceeb ku taal weeye runtii yani meel wax naag isku caaya soomaalidaa jirta wax kale ma jiraan iyagiina waa qaayibeen oo dee dumarka laftoodu waxaan u tegey qofka la yidhaahdo caasha sheekh cabdilla sayidka walaashiisa markaasaan waxaan kaa rabaa gabaya taariikhdii iyo waad soo gaadhay tareex waad soogi jirtay adoo yare waxay tihi hooy anigu naag baan ahay ragga warayso iyadaa igu tidhi waxaan idhi adigana kaa maarmi maayo iyagana waa waraysanayaa reer cabdilla xasan baa buuxay tihi or meelaha garan qof dumara maxaad ka waraysan hooy marka waxa weeye waa wax bulshadii ku dhex faafay hadda lafteeda waxaa arkaysaa dad odhanaya naag ha dhihin idaacadihii baa laga mamnuucay in ereyga naag la yidhaahdo oo waxaa laleeyahay gabdhihii baa ka xanaaqayo waxay dhahayaan xuquuqul insaankii ayaa meel looga dhacay iyo xuquuqda dumarka xuquuqda dumarka waxaa meel looga dhacay marka naag ceeb laga dhigo runtii taas waa taas suuratu nisaa ereyada ixtiraamka waxaan u qaatay haddii ula jeedo ereyadan min fadlik iyo please iyo ereyada saasa soomaalidu ma laha waxaa dareemay markii ugu horreysay gaalada waxay yidhahdeen waa egalitarian society waxaan moodayna inayna ammaanahayaan iyagu laakiin cay bay ahayd markii dambe noqoto waa mujtamac aan kala sarrayn lahayn welina waana haystaayo qof wax ka maqlaya nala kuma arko
waxa weeye haddii tan isdhexa jiri lahaa waagi hore ereyadaasi waa jiri lahaayeen laakiin nin walba yani ninka kale waa la mid oloola waa isku mid waxa magta looga simay waa saas baa laleeyahay waa siman yihiin marka sinaantu mar bay negative tahay oo dee ay tahay ceeb marka aan wax la kala maqlayn hadda maalan waagii kacaanka waxaa la waayey erey loogu yeeray qofka laga hormariyo master iyo mrs iyo sayid iyo waxaasoo dhan waa la nacayoo markaa af soomaaliga cirka marayay jaarle baa la soo rogay jaarle wax la yidhaahda waa jaalkay baa tahay markii dambe wuxuu noqday siyaasad oo qofkii aad haddii kacaanka ah keliya jaalle la odhan karaa baa leeyihi marka magacyadaa ma lihin kala dambaynna ma lihin magacyada saasoo ixtiraamka magaca laga hormariyana ma lihin his excellence mudanaa la keenay mudane ya markaasaa la yidhi qof kastaa waa mudan yahay maxaa mudana maxay tahay maanaan mudnayn madaa iga mudan maya xildhibaan haddaa tahayna anna nin baan ahay adna nin baa tahay mudanaana marka mudane waagi hore waxaa dowladihii ka horeeyey kacaanka waxaa la odhan jiray baarlamaanka ragga ku jira keliya hadda waxaa leeyahay mudane caseeye mid baa igu yidhi mudane caseeyaana wiil yaroo kaba ii tirtirahay xamar taasi wataas jiritaanka af soomaaligu goormuu ku eg yahay waxay ku xihan tahay inaan ogaano goormay soomaalidu soomaali noqota markaan taa ogaano hadda lama odhan karo maogtahay af hebel waxaa ku carabtan waxaan ku arkaa waxay yidhaahdeen awalu man takallama alcarabiya huwa nabiyullaahi huud waa unscientific cilmi ma ah afka hal qof ma soo rogo waa codad weeye afku mid walbana waxbuu mataqaanaa yani sheegaya macnuu leeyahay lagu heshiiyey bulshadu roob waxaan ku heshiinay biyo cirka ka yimaada waa roob af kale roob lagu yidhaahdo soomaalida keliyaa taqaan qorax soomaalida keliyaa taqaan daruur soomaalida keliyaa taqaan haddii alla kuu roon yahay marka yani bulshada horumar buu samaynayaa maalinba maalinta ka dambaysa marka anugu ma sheegi karo meelna weligay kama akrin kumana arag af soomaaliga waktigaasa in lagu hadlo u bilow waa mahadsantihin taani xaaga waxaa salaamaya abwaankeenna oon leeyahay sharaf bay noo tahay caawi inaad halkan marti noogu tahay ma badinayo waktigoo inagu yar awgeed laakiin abwaanka waxaan rabaa inaan weydiiyo caawa dhan gabay buu noo akhriyey marna buraanbur kama maqlin su-aashaydu waxay tahay buugga soo socda ee caawa meesha noo yaala buraanbur ma ku jira asalaamu calaykum waa runteed laakiin haddii si kooban uga jawaabo way kaftantaye annagu waan la kaftamayaa waxaan leeyahay alcarab ma buraanburi jirin alcarab buraanbur ma aqoon marka aniga laftaydu anaaba tiriya mararka qaarkood marka buraanburku qayb weyn buu ka yahay suugaanta soomaalida dumarka ayuuna u gaar yahay dumarkana isagoo u gaaraha marmar lagula dhuuqaa nin la yidhaahdo axmed busur oo reer gaalkacyood ahaa oo markii dambe reer wardheer noqday iyo islaantiisi waa isku kacay xoogaayo dirirayo qolyaa ku diray oo la yidhi iska fur ninkaan iska fur baa la yidhi adigu qaaligaa la tagaa marka qaaligaa la tegi jiray hadda waxaan malay inaan loo baahnay oo iska fasakhaysaa qofka raba waagaas qaaligaa la aadi jiray qaaligaa la ohan jiray ninkaasaa rabaa in laga fasakho oo inoo biil ima siiyo oo marashi iyo masruuf kuma qabo waxaasaa la odhan jiray gabdhuhu odhan jireen adigu meeshii way tagtoo way dacwootayoo isagii baa loo yeerayoo isna waa isdaafacayoo sida muuqata waa ka dacwad badiyey qaaligii wuxuu yidhi waxaad yeelaysaa beri u imaada xukunka beraan ku dhawaaqayaa gabadhii waxaa la yidhi orod gurigaaga aad ninkaan wax garaho aad ku leedahay lama arka inuu ku fure cayaar baad wadaaye socaa la yidhi
أحمد بصر يا جوادي والسرعة عينه ده بوضع صعدان قفن بقلبه مري قول جينا والله وضع صعدها أنت رسيس عليه طبعا إنه أقبيه قاسوا كده ما هو برامبر بورك وهو محا كارها عي ماشي لحون صنع حفيز تجدي محو كاحيري وناك حرمة الله عليها محو حاسد كوكو مركبي قول لي جوادي marka horta raguna waa buraanburaan mararka qaarkood buraanburka ugu caansan aan u malaynayo hadda in horta buraanburka waxaa laga yaqaanaa waa mudug iyo bari asalku waa halkaas waa labada meeloodna waxaa kaloo laga yaqaanaa wax la yaab laho migiska iyo boorana waa labada meelood ugu badiya shaydaamo iyo hadaamo iyo meelaha ku jira oo halalow yahay booqan iyaa la yidhahdaa lama ag maro marka gabadheeda u heestay oo u buraanburtay baa ugu caansan oo sureer la odhan jirayoo sureeray hooyo oo gabarh waxaa weeye aan hal sano gaarinoo sureeray hooyo soomaali kulama rabo anay isabteen oo suufkiina iga furteen oo suuqa xamar weyne guntiinaan ku saraqsadaa bay tiri marka buraanburku waa qayb ka mid a maansada soomaalida oo muhiim ah wuxuu gelayaa qaybta heesaha waa mahadsantii idaa jaa abwaan weeye iyo ruux ammaan mudaane afkii hooyo oo soconayo waa ilays shidaane ixtiraama soomaaliyey waa abwaan qaraane waa abwaan qaran